munaasabadan oo ahayd mid lagu soo bandhigayay hogaaminta taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Jenaraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan iyo horumarkii la sameeyay sanadka 2019-2020 ayaa loo qabtay xabsiga dhexe Xamar. Waxaa madasha ku sugnaa wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya, xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka, mas'uuliin ka socotay bahda garsoorka dalka iyo saraakiil ka tirsan booliiska nabad sugidda iyo asluubta. Inta ay socotay xafladda ayaa lagu soo bandhigay gaadiid ciidanka lagu soo kordhiyay, tirada ciidanka asluubta oo la kordhiyay iyo dayactiro lagu sameeyay xabsiyada iyo xafiisyada ciidanka asluubta. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Maxamuud Axmed Xasan Dalab ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay xabsiyada iyo doorka ciidamada asluubta ay ka qaataan dhaqan celinta maxaabiista. horumarka uu asluubta gaarsiiyay waa 2 sanadood oo kaliya 3 sano ma aha, waana wax la taaban karo oo itaabsi way tusiya itaabsi baadna tusaaco run ahaantii taliyaasha oo dhan waa loo baahan yahay inay 10 ka qaataan halkan. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Jenaraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa sheegay in guulahan uu gaaray ay la shaqeeyeen saraakiisha ciidanka asluubta waxay yihiin ummadaanaba sheegtay annagana wixii aan qabanay ama hanagula amaano ama hanagula caayee waan soo bandhignay. wixii kale aan awoodi karnana waan ku sii daraynaa haddii Ilaahay yiraahdo. hal shay waa ku darayaa kuma dheeraan doono. gaadiidka halkaan ka muuqdo 3 baabuur oo cabdibila ah iyo gaarigaas kore oo jandiyasha yay ku sheegeen dadku. dhowr baabuur oo kala wehelisa hadda waxaa laga heli karaa xuduudaha dalka ilaa beled xaw ilaa dolo laga heli karaa. wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa sheegay in taliyaha wax qabad muuqda uu la yimid iyo horumarkii laga sameeyay dib u hagaajinta bahda cadaaladda. marag fur badan uma baahna wax qabadka muuqda ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed ay sameeyeen sanad howleedkoodii uu soo dhamaaday. waxaa la gaarayo guul wax ku ool ah oo taabanayso dhammaan waaxyaha hawsha qaran ee taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed uu xil saartay. waxaa si weyn u dareennay isbedelada muuqda ee ka hirgelaya xabsiyada guud ahaan, haddii ay noqon lahayd dhanka daryeelka maxaabiista, amniga guud ee xabsiyada, dhaqan celinta dambiilayaasha iyo waxbaridooda. ujeedka dhabta ah ee dambiilayaasha loo marsiiyo xukunka xabsi ciqaabta ah waa in wax laga bedelo qofnimadiisa, habdhaqankiisa, xirfadiisa iyo aragtida uu ka haysto nolosha iyo dad la noolaanshaha.